magacaygu waa Cilmi Muuse Xuseen Cilmi BK waxa hadda taaganahay deegaanka Moorari ee gobolka Hiiraan waxa waqti badan ku soo jirnay jihaadka la dagaalanka cadawga argagixisada al-shabaab guud ahaan gobolka Hiiraan hadda waa ka sifeynay kooxaha nabadidka ee raadiga argagixisada al-shabaab waxa uu sheegaynaa dadka dhalinyarada ah ee ka soo jeeda deegaanadan gobolka Hiiraan meel kasta ay joogan haddii qurbaha joogan iyo haddii dalka joogaanba in maaragtaa gacmooda jiriga ku gooyaan hadda shaqadu way gabagabo wax yara ka harsan in maaragtaa la yiriska oo dhammaan la dhameystiraan waxa uu mahad celinayaa guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka iyo ciidanka dib u xiraynta deegaanada oo ayagana maaragtaa si harsameen shaqadu qabtay waxa iskale mahad usugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo maaragtaa loo fududeeyay inaan ka guuleysano kooxaha nabadidka al-shabaab waxa ku faraxsanaa maanta in guud ahaan gobolka Hiiraan oo xur aan joogo na ku damaashadeeno annagana aan wadankeena ka xoreysanay cadawga al-shabaab waxaan u sheegaynaa cadawga in halkaas aska celinayno qoragaas u wadana asaasiga celinayna waana la dagaalamayna meel kasta joogan haatan marka gobolka waan ka xoreynay laakiin wax u dhaaqay doona dhanka kale iyo meelaha ku harsan yihiin sida aarsu raadilan darteed because waxaan laga maqan dad badan oo qaaliya ah maaragtaa intii la dagaalamay argagixisada gacantooda ku baxay dadkii baa rabnaa in soo aarsano oo maaragtaa gacanteena ku soo bixino meel kasta intii dhimatay ee ku dhimatay jihaadkana Allah subhanahu wa ta'ala u naxariisto intii ku dhaawacantayna ayagana Allah u bogadhayo caafimaad dadkana siiyo waxaan u sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dadka la dhageysanaya ee ku nool guud ahaan Soomaaliya ama caalamka intiisa kaleeto oo ayagana ka soo jeeda deegaanadan oo loo baahan yahay in yimaadeen wadakooda ay ku raaxaystaan cadawga ka saaraan barwaaqada ay la qaybsadaan ummadooda haddii dib ay soo mareen haddii dheef soo mareen intaba in la qaybsadaan wadada sinada ugu raaxaystaan waxa kale oo baaq u direynaa dadka diriska lala ah haddii degan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe haddii degan yihiin gobolka Galgaduud haddii degan yihiin gobolka Baa iyo Boqol intaba waxa uu sheegaynaa ayagana in sida annaga aan iskaga xoreeyna cadawga iskaga xoreeyaan haddii ay maaragtaa aan garab sii karno aan garab siinayna ayaga ay la dagaalamaan cadawga ay jihaadka qayb ka noqdaan si ay maaragtaa ay nimankan qawaarijta ee argagixisada al-shabaab aan ugu guuleysano waxaana iska leh mahadda guud Allah subhanahu wa ta'ala oo noo fududeeyay shaqada adag oo waqtiga badan aan ku soo jirnay waxaana si gaar ugu mahad celinayaa dadkii deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda guud ahaan ciidamada qalabka sida oo ayagana gacan mugli ka geystay in la dagaalamo kooxaha argagixisada ee al-shabaab waxaan u diraysaa dadka dhalinyarada saagaad oo kale al-shabaab ku jiro waxa u dirayaa ilmaha al-shabaab kamida oo maaragtaa ayaga la qalday in ay wadakooda ina dhibaataynin ee dadkooda ina dhibaataynin ee hooyada ina gowracin aabood ina gowracin caruurta la dhalto walaalada ina gowracin deegaanka ay ku dhasheen in u diidin mustaqbalka iyo iftiinka in ay ka soo baxaan argagixisada al-shabaab annagana aan ku soo dhaweyd doona gacmo furan waji furan iyo qalbi furan si aan u dhihin maadaama ay la dhasheen anaga ay la qalday maskaxdoodana maaragtaa waxyaabo aan fiicnaan lagu shubay inay dalkooda iyo dadkooda ay dib ugu soo laabtaan ay diintooda ku soo laabtaan